NYSC. National Youth Service Corporation. What is POP? إلا إذا لما أنت وحلا سمينا يا شركي بقى استلمتي ولا قبلية لما أفراد وحلا رماي شوينا إلا قبته استيراء اللي هو دورته إيش استيراء على هو دورته يحتاج كل هو قبته لما تني تدخل يشوف لما يكون يسجل يكون اللي هو قبته لما هو اسمه في الدولة ده اللي هو جرا العكس اللي هو حليه كونفليكت اللي هو رميه خلافات كده اللي يدحي اللي هو رميه ماشي الله ينوم صوت اللي كليه حال العقل مو سريه كليه اللي مسوي وحنا يسوي كون إنه هشينه لو إنه وحنا صورنا جدا يسوي كصورنا إنه صورنا صدق إنه حارتي سنة يبركوه لأن سقيي إنك لا تديره أنت أسألينه أنت من الدنيا ما هم توكل أنا ما صليت شوف في حالة دورش المقطع دورش يعني لو يدي استيرا الصحة إلى الدور استيرا ما نبغى عنه وما بهني أنا ما أخذ لك يتري فيه هذا ودك كثير قرية الدور قرية وقت قرية تاجد قرية استيرا مال واحد يقول قرية الناشا إن كل مال جارها هذا ما بقول يقول قرية استيرا وما قرها ودك الشرع ذا كثير مش كلام فنون شغلانه تطبيق مليون واحد يعطي إلا إذا هو تطبيق من الوصية هو رد مري نضبط إيه لو يمالك ما تقولينه إن أفكار الوصية له ما قبضته محيط حلا رد مري سو هنتي الدولة من شعب مري سو العقد أنه ما كل سنة ما نتاجي سو مش كأنه مري سو اسمه أنه مري واي لون هي ولا رد مري سو تطبيق الشاشة الله أكبر ولا جريه ما نروح كذا ما نروح كذا سافت كيف بحيته لك سجال كاي مسلم كو أنا كيسنا هذا الوقت من السر وحن مباهن القرآن كثير اسمه وكاس وحكوها لنا وحسكيها لنا مساجد كيف هذا في كلين سنة صلاة اللي تكون يسوين ما في عينين أو تسوي هذا الشيء وحد تبقى الله هو مالك على هاي الناس مساجد كيف سعر مشى وضيبه تو سعر مشى والسوليه مرحبا شو مشى تستاس قبل هذا بدل كلام هذا قاس عباس كرسي كودي والله مخرج عليك كلام ما لك ولا حتى شو تدرس ونقله انا بس الشعب كان مساكين انا هو حيرنا وانا بقول الله هاي محل ما قدمني انا قدمني لما انا قدمني فيسبوك ما دقيقه maalin buu nebigu arkay saxaabadiisa iyagoo meel fadhiya oo sheekaysanaya laana saxaabadu bashar bay haayeen cabdulaahi ibni cumar bnukhadaab baa lagu yidhi asxaabta nebi maxamed may qusli jireen haa way qusli jireen buu yidhi laakiin iimaanka qalbigooga ku jira ayaa buuraha ka weynaa buu yidhi malaa'ig may ahayna bashar bay haayeen sida innagu aan u shaqaysanay u shaqaysanayeen
sida inaku reerayo u badan u leenahay si ka badan bay u lahaayeen laakiin qulubtooda waxaa ku weynayd ilaahay baa ku weynaa diinta ayaa ku weynayd aakhirada ayaa ku weynayd maalin maalmaha ka miduu nebigu arkay jamac asxaabtii ka mid oo meel iyagoo fadhiya markaa ay sheekaysanayaan oy dhoolla caddaynayaan ee qosqoslayaan markaa buu nebigu ku yidhi low aghartum dikra haadimi laddaat la shaqalakum camaa araakum canhu yacni almowt haddaad macmacaan dumiyaha xasuustiisa iyo sheekadiisa aad badsan lahaydeen buu nebigu yidhi qosolkaa aan nigu arkaayo waad ka mashquuli lahaydeen buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam haddii asxaabtii nebi maxamed ay u baahdeen mar walba inuu nebigu dul joogo uu ilaahay xasuusiyo uu dhimashada xasuusiyo uu aakhirada xasuusiyo innakoo maanta zamankan joogna zaman alfitan zaman fitanta iyo mashaakilka ay bateen iyo fasaadku meel walba uu yaallana inteen uga baahi badannahay asxaabtii nebi maxamed in mar walba layna xasuusiyo ilaahay la kulankiisa aakhira inay jirto in lagu xasuusiyo inuu qabri kaa dambeeyo in lagu xasuusiyo waa arrin lagama maarmaan oo kulligan aan u wada baahannahay haddaad badin lahaydeen buu nebigu yidhi macmacaan dumiyaha warkiisa iyo sheekadiisa qosalka aan nigu arkaayo buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam maad haleesheen maanad qososheen waad ka mashquuli lahaydeen buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waagii barye iyo gabalkii dhacaba maalin kasti waxa uu bini aadamku u sii dhowaanayaan waa qabriga weeyaan qabriguna marka uu hadlayaa wuxuu leeyahay anu gurigii keliga ayaan ahay anu gurigii darxiga u saaxiibka ahaa baan ahay anu gurigii madoobaa baan ahay waxaad iga shaqaysato uunbaad isoo dhiganayso ood iga heli doontaa nin reer madiino ansaariya janaasadiisii buu nebigu raacay calayhi salaatu wasalaam markii qabrigii la geliyey iilka la duldhigay ayuu nebigu saxaabadiisii ku yidhi istakfiruu liakhiikum wasaluu lahu atahbiit fa innahu al'aana yus'al buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam walaalkiin ilaahay dembidhaaf u weyddiiya su'aashii qabriga hadda la weyddiinayaaye qowlka xaqa in lagu sugana ilaahay u weyddiiya haddaa su'aashii qabriga la weyddiinayaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam oo su'aasha qabriga waa maxay waa saddexdaas su'aalood weeyaan man rabbuka man nebiyuka maa diinuka mar allihii markaa qofka innagu aan dhigna qabriga een ka imanno ka u dambeeya ka soo dhaqaaqaya shanqadhiisa la maqashin buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laba malag baa u iman doonta alfataanaan deedna way fadhiisinayaan qofka saddexdaas su'aalood bay qof walba weyddiinayaan hadduu boqor yahay waa la weyddiin hadduu caalim yahay waa la weyddiin hadduu maaragtaane weli yahay waa la weyddiin hadduu faasiq yahay waa la weyddiin bashariyadda adduunyada ku nool oo dhan saddexdaas su'aalood waa lala sugi doonaa man rabbuka ayaa ku rabbaynayey ayaa ku quudinayey ayaa ku arsaaqayey ayaad caabudaysay ayaad baryaysay ayaad rajaynaysay ayaad tala saaranaysay maa diinuka diintaadu maxay ahayd dhaqankaagu muxuu ahaa maxaad dhaqan ka dhigatood ku dhaqmaysay man nebiyuka ninka laynaga soo dhex saarayna maxaad u taqaannay markaa qofkii muuminka adduunyada dusheeda ilaahay garanaayey ee iimaanka qabay ilaahay baa yidhi yuthabbitu allaahu aladiina aamanuu bilqowli athaabiti fi alxayaati addunya wa fi alaakhira wa yowma yaquumu alashhaad ilaahay tabaaraka wa tacaala qofka muuminka iimaanka qaba saddexdaas su'aalood ee qabriga qof walba lagu weyddiinayo ilaahay baa qofka muuminka ku sigi doono ilaahay baa jawaabta haleeshiin doona walaalayaal ilaahayna haynagu sugo allah haynagu sugo allahna inoo dhib yareeyo saddexdaas su'aalood baan qof kasta la weyddiin doonaa marka muuminkii adduunyada dusheeda ilaahay kaga baqaayay ilaahay maad arkin laakiin rumee makhluuqaa kuu muuqda makhluuqaad arkaysaa laakiin khaaliqa lama arka adduunka inta la joogo jidhkaad arkaysaa laakiin ruuxda lama arko adduunyadaad arkaysaa laakiin aakhirada lama arko inta adduunka la joogo manaaficda lacagtaad arkaysaa laakiin manfacadda salaada iyo manfacadda hawaabka ma arkaysid waa qayb aakhira taa lagugu tusin doonaa shayga maanta mushaaxadaadka inoo muuqda ayaa ha dhowtoola noqon doona muqayabaad wax kaa qarsoomay buu noqon doonaa shayga qaybka maanta kaa qarsoon waxa uu noqon doonaa wax hortaada yimaadood aragto ayuu noqon doonaa